السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسر دمار قيارتا قيمة قدرنتا إنها مدن meel walbo aad ku sugan tihiin ba waxaan leenahay arooriyo suuban maalin wanaagsan. Saaki waa subaxnimo khamiis ah, taariikhduna waxa ay ku aastaysan tahay 7 bisha 9 ee September sanaduna waa 2023. ku soo dhawaada mar kale ayaan leenahay channelkiina Reexaan Channel. saakina waxaynu soo qaadan doonaa jumlado aynu kaga hadlayno aabaha iyo waxtarkiisa oo u leeyahay ubadka Soomaaliyeed iyo ama dhammaan bulshada oo idin weerooyinkaas oo ku baxaya luqadda Carabiga yaan halkan ka soo gudbin doonaa. ee ku soo dhawaada qiyaaray mar kale channelka Reexaan Channel. haddii aynu gudaha u galno ama aynu bilowno wayda koowaad Allahumma harrim ala qalbi abi husn al-hayati. jumladan waxay leedahay Allahumma harrim ala qalbi abi, Allahumma harrim ilaahayo ka ilaali ka dhowr ala qalbi abi qalbiga aabahay ka ilaali حزن الحياة مرugada nolosha ka ilaali. اللهم حرم على قلب أبي ربيو ka ilaali oo ka dhowr qalbiga aabahay niyada aabahay waxaad ka ilaalisaa xusnul xayaati murugada iyo tiiraanyada nolosha ka ilaali. mashaqada iyo murugada noloshu ay leedahay qalbiga aabahay ka ilaali. weedha kale hunaaka nawcaani waxaa jiro laba nooc. hunaaka nawcaani waxaa jiro oo la helayaa way noocaani laba nooc oo min rijaali rag ah. ragga laba nooc ayaa jirto abi aabahay iyo baqiyatu rijaali iyo ragga kale. labada nooc oo ragga ah abi aabahay oo nooca iyo baqiyatu rijaal iyo ragga kale. dabcan waa qof aad u qiimeynaya aabihiisa marka qayb dhan oo ragga kamida iyo aabihiis ayuu isu bardhigaa. marka waxaa jiro laba nooc oo rag ah abi aabahay iyo baqiyatu rijaal iyo ragga kale. marka aabihiisa ayuu wuxuu bardhigay ragga kale dhan ay ka soo haray iyo aabihiisa ayuu isu bardhigaa. marka labadaas ayaa jirto. aabahay kaligiis ayaa qayb ahba, ragga kalena waa qayb kale. labadaas nooc ayaa jirta. weedha kale qaalal abu liibnihi qaalal abu aaba ayaa waxa uu ku yiri liibnihi inankiisa ama wiilkiisa ixdir digtoonow iska jir iska ilaali ayna tadacu rijlayka halka aad dhigayso lugahaaga. qaalal abu liibnihi aaba ayaa wiilkiisa ku yiri ixdir digtoonow wiilkaygiyo ama inankaygiyo ayna tadacu rijlayka halka aad dhigayso lugahaaga. ayna tadacu rijlayka meesha aad dhigayso lugahaaga iska ilaali ka digtoonow ka fiirso. qandaf lama rabe halka aad lugahaaga ama cagtaada meesha aad saarayso wiilkaygiyo ka digtoonow iska jir. meel walba cagta lama saaro waaye. radda calayhi ibnahu wiilkiisa waxa uu ugu jawaabay ugu celiyay radda calayhi ibnahu wiilkii ayaa ugu celiyay adoogii oo ugu jawaabay ixdir anta yaa abi aabow adiga digtoonow. ixdir anta yaa abi aabow adiga digtoonow adiga iska fiiri meesha aad dhigayso cagahaaga. maxaa yeelay fa ana anigu attabicu anigu waxaan raacaa khudwaatika adiga tilaabooyinkaaga ayaan raacaa. aniga fa ana attabicu khudwaatika anigu waxaan raacaa adiga tilaabooyinkaaga oo laga ula jeedo anigu waxaan cagta saaraa oo lugahayga aan dhigaa
meesha adiga aad dhigto aniga adaa ku raacaa adaa ii ah qudwo adaa imaamkayga ah adaa aabahayga ah adaa kugu dayana aniga meesha cagta aa saarto anigana saara marka adiga digtoonow adiga ka fiirso halka aad dhigayso lugahaaga maxaa yeelay anigu adiga tilaabooyinkaaga un baa raaca adiga raadkaaga ayaa ana ku socda marka adiga digtoonow adiga waana gelin waa meel halis ah marka dabcan waxa ula jeedaa aniga adaa mar walba baari ku ahay adaan kugu daydaa adaan ku raacaa dabeecadaadaan qaataa adiga saa u dhaqanto ayaan u dhaqmaa marka adiga wanaag un ka shaqee waay sa anigana adiga aan kugu raaco wanaagaas aan kugu daydo marka adiga un baa ku raacaa mar walba adiga imaam ii ah waay weedha kale rabbii adalla fii cumri rajulin rabbigayga adalla ha dheereeyo fii cumri rajulin nin cumrigiisa alla ha dheereeyo aftaqiru daa'iman oo had iyo jeer anigu aan ku faano rabbii adalla fii cumri rajulin rabbi ha dheereeyo nin cumrigiisa aftaqiru daa'iman oo anigu had iyo jeer aan ku faano ninkaas bikownihi abi ninkaasuna waa aabbahay bikownihi abi aabbahay uu yahay dartiis ninkaas nin aabbahay ah waay ninka oo leeyahay macnaha cumrigiisa ha dheereeyo rabbii adalla fii cumri rajulin nin cumrigiisa allaha dheereeyo aftaqiru daa'iman oo aniga aan ku faano had iyo jeer bikownihi abi ninkaas ahaanshihiisa uu yahay aabbahay ninkaas aan ku faanayo oo cumrigiisa ha dheeraado waan leeyahay waa aabbahay waay nin kale ulama jeedee abi aabbahay unbaa ka wada ninka cumrigiisa inuu dheeraado aan jeclahay weedha kale al-abbu huwa nicmatun laa natrukha al-abbu aabbuhu huwa nicmatun waa nimco laa natrukha aanan ogaanaynin aanan garanaynin annagu ilaa cindamaa nafqiduhaa markaan waayno maahana nimcadaas ilaa cindamaa nafqiduhaa markaan waayno mooyaane al-abbu huwa nicmatun laa natrukaa aabbuhu waa nimco oo aanan garanaynin aanan ogeyn aanan u jeedin ilaa cindamaa nafqiduhaa markaan waayno nimcadaas unbaa dareennaa marka aabbuhu waa nimco aan loo jeedin laakiin markaan waayno ayaan ogaanaa nimcadaas inay nimco ay ahayd aabbaha markuu dhinto oo meesha uu ka baxo uu faaroojiyo hoyga ama guriga uu faaroojiyo markaas ayaan ogaanaa in ay naga maqan tahay nimco weyn inay naga maqan tahay markaas baan garanaa oo aan miirkeena iyo maskaxdeennaba ay ku fogaantaa in aabbuhu uu yahay nimco uu ahaa marka waayno nimcadaas ayaan ogaanaa waay weedha kale abii akharu man caraftu abii aabbahayga akharu man dadka midka ugu badan waay ama abii aabbahay akharu man caraftu waa midka ugu badan inta aan garanayo dakaa'an caqliga wa ludfan naxariista wa khuluqan iyo dabeecadda inta aan garanayo waa midka ugu caqliga badan ugu naxariista badan ugu dabeecadda badan waay inta aan garanayo aabbahay macnaha aabbahay inta dad aan garanayaba isagaa ugu caqliga badan ugu naxariista badan ugu dabeecadda badan ma aqaano waaye qof aabbahay ka caqli badan ka naxariis badan oo ka dabeecad badan waayahay weedha kale waman anaa duunaka waman anaa kumaan ahay anigu duunaka adiga la-aantaada yaa abii aabbahayow waman anaa anigu yaan ahay waaye duunaka adiga la-aantaada yaa abii aabbahayow aabbahayow adiga la-aantaada anigu maxaan ahay kumaan ahay aniga horta adiga la-aantaada haddana jirinba anigu maxaan ahay qul lii ii sheeg eyqadulbaxra baxran baddu sidee bay ku ahaanaysaa bad duuna maa-in biyo la-aanteed qul lii eyqadulbaxra baxran duuna maa-in sidee bay baddu ku noqonaysaa bad biyo la-aan baddu biyo la-aan bad kuma noqoto wa badda waxay bad ku tahay
biyahaas dhex ceegaaga ay ka buux ayay bad ku tahay haddii biyahaasi rabbi uu ka saaro bad noqon mayso marka dhul banaanay noqonaysaa haddan marka badda waxay bad ku tahay bad aan ku leenahay biyahaas ku jira marka anigana adiga unbaa wax kuu ahay waay adi la-aantaada anigu kumaan ah ma aqaano marka waxaan ahay aniguna waxaa aniga ku ahay adiga waay baddan waxay bad ku tahay biyaha aniguna waxaa aniga ku ahay adiga oo ah aabbahay sida ayuu ula jeedaa weedha kale abii anta kullu maa amliku abii aabbahayow waay anta adigu waxaa tahay kullu maa amliku wax aan haysto dhan oo min haadihi alxayaat noloshaan waxaan ku haysto dhan waa adiga dumta lii nicmatun waxaan haystaa waa nimco daa'im ah oo min allah ilaahay xaggiisa igaga timid iyo wa khayran khayr oo daa'im ah ayaan haystaa laa arjuu aanan rajaynaynin siwaahu isaga khayrkiisa baan ka rajaynayn isaga khayrkiisa baan rajaynayn ayaan haystaa marka nimcada aan haysto dhanba oo nolosha aan ku haysto adiga waay waa nimco daa'im ah oo alla xaggiisa iga timid iyo khayr oo aanan rajaynaynin siwaahu isaga la-aantiisa weedha kale uma inii ra'aytu daw'a alxayaati min khilaali abi uma inii ra'aytu anigu waxaan arkay daw'a alxayaati iftiinka nolosha ayaan arkay waxaana ka arkay min khilaali abi aabbahay gudihiisaan ka arkay aabbahay ayaan ka dhex arkay iftiinka nolosha iftiinka nolosha dhan aabbahay ayaan ka dhex arkay isaga ayaa iftiinka nolosha ii ahba allaahumma ijcalhu ilaahu ka yeel way aabbahay daw'a abadiyan iftiin joogto ah oo abadi ah aan dhammaanin ilaahu ka yeel allaahumma ilaahayow ijcalhu ka yeel aabbahay daw'a abadiyan iftiin abadi ah oo joogto ah aan dhammaad lahayn wa maadaama aan ka dhex arkayba nolosha iftiinkeeda in ay ku jirto aabbahay weedha ugu dambaysa abun waaxidun hal aabbo ayaa khayrun ka wanaagsan min 10 murabbiina 10 macallin abun waaxidun hal aabbe ayaa khayrun waxa uu ka wanaagsan yahay uu ka fiican yahay min 10 murabbiina 10 wax tarbiyeysa oo barbaarin iyo tarbiyeyn haysa waxaa ka wanaagsan hal aabbo marka hal aabbo wuxuu ka wanaagsan yahay 10 macallin oo wax tarbiyeysa waana taas ayaa ahayd weedhii ugu dambeysay jumlooyinka aan ka soo qaadana maanta ay ku saabsanaa dhanka iyo aabbaha maadaama aabbaha uu yahay barbaariye mas-uul uu yahay dad badanna soo saara soo koriya bulshadana ka dhiga bulsho waxtar leh marka aabbuhu qiimo weyn ayuu leeyahay hooyadana hore ayaan ugu soo horannay oo muuqaaladii kale ee youtube-ka ayay ku jirtaa hooyada iyo qiimaha ay bulshada ay ku dhex leedahay wahagaag intaa ayaynu ku soo koobaynaa casharkeenna maanta dhammaantiinaba aada u mahadsantihiin sida wacan ee wanaagsan aad u daawataan channelka Reexaan Channel meel walba aad joogtaan waxaan leenahay channelka hala gaarsiiyo inta kale ee san weli oo gaarin oo saaxiibadiina iyo ehelkiina qaraabadiina kale ee jacayl ama dareynaysa barashada luqadda carabiga idin waad mahadsantihiin intaan casharkiis xiga aynu ka gaari doono dhammaantayada waxaan leenahay isma dhaafno nabaadiino noola kulantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh